gurigaada haddaad ku aragtay quraanjada geesaha dheer iyo baranbarada geesaha dheer waa mashaakisha iyo awoodaha xunxun ee enerjiga xun ee guriga ka jira waa khaasatan guriga waxay ku soo bataan markay joogaan laba qof iyo saddex qof wax ka badan oo xanuun ruuxiya qaba bismillaahir rahmaanir rahiim inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala an-nabiy ya ayyuhalladhina aamanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلالها كحران سي اف بلشو دمانتي وايد السلام الله إذن حفظه arrimaha kani waa kuwa sababaya burburinta guryaha iyo nolosha carqaladaha iyo mashaakishana keenaya horta ilaahay uu naxariisto samankeenii hore 30 sano ka hor 40 sano ka hor waayihii hore dadku say u noolaayeen isay u faraxsanaayeen iyo sida uu mashaakishan maanta jirta ay u yarayd horta ilaahay zamankaasi uu naxariisto samankii awoowayaasha ayeeyooyinka zaman qurux badan buu ahaa zaman xaqdiga iyo calool xumada laga fogaa buu ahaa zaman murugadu yarayd bay ahayd zaman xanuunada ruuxiga aan inta badan la aqoon bay ahaayeen dadku ay qalbi sufiyoobayeen zaman wuxuu ahaa balaayadan cankabuudka ee nolosha maanta ku habsatay aysan jirin sababaha keena maantay noloshan ciriiriga waxa kamid ah waagii horena dadku ay ka digtoonaayeen in qofka bila aadanka gurigiisu uu ahaa guri furan albaabku furan yahay qof walba dib ha u xisaabiyo hadduusan asagoo ogeynna ha weydiiyo dadka ka waaweyn ee ka agdhow waagii hore guryaha albaabka aroortii loo furi jiray daaqadaha loo furi jiray markaasay dadku waxay dhihi jireen irsaaqada soo galaysa albaabka la balqi jiray guriga marka salaad subax la tukado waxaa bedelay dal albaabku xiran yahay mar walba طبعا de adduunku isbedelo tuugadii waa badan tahay laakiin dhafraya oo soo jeedaya oo filmaan iyo musalsal daawanaya kadibna salaad subax iska daayay aroor inay toosaan iska wada jiifa doorkii soo toosay markaas wuxuu ku leeyahay baraka ma jirto oo wuxuu ku leeyahay israa'iil bay dilay maxaa adaaba sameynaya qodobka muhiimka maxaa muhiima inaad albaabkaada furtid aroorti daaqada furtid enerjiga iyo neecawda ku soo galaysa ma xisaabin kartid wallahi waxay kugu fadhiyaan irsaaqada guriga ku soo galaysa adoo fadhiya albaabka u fur daaqada fur ha xiri waqtiga aroorti subaxdii aroorti qodobka kale ee waayahaasi dadku aysan aqoon laakiin hadda nagu batay waxa weeye waagi hore ma jirin masquul guriga ku dhex taala taariikhda dib u raaca masquushu waxay ku ooli jirtay halkaas oo kale koona ah حتى jikadu kuma ooli jirin guriga dhexdiisa halkaas oo kale meel ay ku taal hadda se falayga dhexdiisa qolkii la seexanaya masquusha la soo galiyay balaayo dhan halka markay isku iimaanaysa ila golo shaydaan way masquusha iyo jikaduba cayayaan way golo cayayaan guriga kanaacadu way ku badatay baranbaradu way ku badatay quraanjadu way ku badatay baranbara wada geesa dheer quraanjo geesa dheer balaayadu meesha ka iimaanaysa waa mashaakil waa energy xun waay masquusha marka waagi hore halkaas oo kale tooli jirto waliba ilaahay baan ku dhaartay anigu xataa soo gaaray masquusha dadkana weydiiyay masquusha waxay ku ooli jirtay laga yaabo dayrka guriga laga soo garay iridka ugu horay hadduu soo guriga dayr lahayna banaan meel ay ku taala meel gooniya loo fogayo lagu faquuqay hadda se waxa naloo soo guriyay iyadoo la qurxiyay la naashnash waa guri shaydaan maxaa laga qurxinaya la khatar laga dhigay albaab gadaha loo geliy caadadeena dhaqankeena ma ahayn dhaqan gaalay waxaan ahayn barakana lahayn guriga markii la soo geliyay baraka ma jirto farxad ma jirto adduunyadii oo dhan ba waxay noqotay carqalad iska soo jeedo isfeeraysa maanta dhan gurigaada haddaad ku aragtay quraanjada geesaha dheer iyo baranbarada geesaha dheer waa mashaakisha iyo awoodaha xunxun ee enerjiga xun ee guriga ka jira waa khaasatan guriga waxay ku soo bataan markay joogaan laba qof iyo saddex qof wax ka badan oo xanuun ruuxiya qaba xanuun jin xanuun xasad xanuun il xanuun sixir laba iyo saddex qof oo guriga jooga quraanjadan madaxa kor taagaysa fiiqan iyo baranbarada lagama waayay waa dhooban yihiin waagii hore waxa jiri jirtay oo barakana ahaan jirtay martida sida loo sooriyeeyo bal guryaha waxa kamid ah qol yiraahdo qolkii martida oo iska furan iska gogolan ma sha Allah hadda sama jirto dadkii guriga deganaa meel ay seexdaan la barakadii noocaas waa guurtay لأن دقنك إسلامك وحوي مرتدو مركي كوتي مدينة سورييسي مرتدونا ومن أسباب البركة ماشا لغا كرامي يو ماشا سي بركة ايماتا ووحي نبربريي ووحي نبابيي وحيالها كلو ما انت دادك بابيي وحاكمي دا حنونا دا روحي غانا السبب كليغي سعود دادكي دان أمانة دا كدماتي
qof aaminaya malaha keligii buu socdaa keligaa mar haddaad socotid oo keligaa nooshahay oo keligaa meel wareegaysid ogow energy xun oo dhan iyo xanuun ruuxiya ama xasad ama ilha ahaatee waxaad u tahay qof u jilicsan baad u tahay waagii hore maana aqoon dadku asxaab badnaayeen dariska waxoo dhan gurigaan laga ciyaal ka socontaynaya kanay ka socontaynaya reerka la dariska dadkoo dhan caysho milix bay ahaayeen soo ma ogidin taariikhdaas haddii na ogeyna dadkani ka waaweyn weydiiya waad ilmaynaysaan wallahi maanta waxaa yaalla dadku isku dhex qasnaayeen waxaa laga yaabaa khamiistan inuu wiilkan maalinta caruurtan ay la soo seexdaan dariska iska daa qaraababa dariska dadku xuqdi ma aqoon xasadnimo ma aqoon colaad maysa aqoon maanta laakiin ma jirto waxaas waxnoo soo doonaya leeyahay masaaqad buu noo dhigtaa leeyahay waaba ilaynayaanba wayba daba dhiganayaanba ciyaalkan qurux badanaa ma hadba dhinaca ka fiirinayaan inay dhibaatayna laga yaabaa inay kufsadaan baaba laga yaabaa subxaan allah war dadkii aaway dadkii waa isbedelay sabankii ma sidaa darteed baan ku leeyahay sabankii hore allah u naxariisto sabankii hore allah u naxariisto saban qurux badan buu ahaa allah sabankaas yaa noo soo celiya sabankii darisnimada la isku ixtiraami jiray sabankii darisnimada la iskaga warqabi jiray sabankii cuqdadu yaray sabankii farxadda wey dadku maanta marka waxay sheeganayaan inay cilmi iyo aqoon iyo horumar gaareen horumar iyo cilmi aan faa'iido u keenin bay gaareen marka runta laga hadlo keligii socodka iyo qofku inuu gooni socod uu yahay martidii oo la sooranay martidii oo yaraatay gurigii oo musqusha la soo dhexgeliyay baranbaradii iyo maaragtay quraanjadii oo guriga ku batay albaabadii oo aan la furayn aroortii guriga naacaw iyo energy aan la soo gelinayn waa sababaha keenay in qofka kan uu ku noolaado nolol uusan fahansanayn waxaa kaloo ka mid ah samankaa horena la samayn jiray in guriga lagu tirtiro ama lagu shubo cusbadu enerjiga xun ee guriga ku jira way la diriirtaa aad bay ula diriirtaa xataa haddii gurigaada uu soo booqdo qof aad ka dareentid inuu xaasid yahay gurigaada uu maanta oo dhan fiirfiirinayay hadallada ka soo fakfakanaya hadalla xasadnimo ka imaanaysa aad ka dareemayso markuu kaa tago bartii uu ka kacay iyo meeshuu fariistay cusbo ku shub cusbo ku dhaq cusbo ku tirtir enerjiga xumaa ee qofka xun uu reebay meesha uu ka baxaya waaga hore saas la sameyn jiray yacni qof markuu soo boqdo cusbaa meesha lagu daadin jiray cusbaa lagu tirtiri jiray guriga si guud ahaan cusbaa lagu tirtiri jiray shaydaanka cusbada waa necib yahay oo awoodaha xunxun ee shayaadiinta waa necib yihiin oo xanuunada ruuxiga waa necib yihiin ma jiraan sababahaas way yaraadeen hadda inteena badanna bal waxaan aaminaba inay khuraafo tahay sidaa darteed markaan saan nidhi waxay leeyihiin faa'iidada noloha khuraafo aan ku tilmaannay annagii baa nolosheenna waxay noqotay nolol khuraafa ah annagii baa waxaan noqonay kuwa ku nool khuraafa fi khuraafa cala alkhuraafa baa noqon halka ku danno maxaa muhiima marka xasuusta maalmaheenni hore waraysta ayeeyooyinka awoowayaasha dadka hore waraysta wixii faa'iidadu ku jirtay iyo noloshii habiga ahayd ee dabiiciga ahayd ee ka baxsanayd tacqiidka iyo waxyaalahan culaysyada weydiiya kadibna ku dhaqma wixii faa'iido ku leh tijaabo lagu ogaado sharcigaadu kuu diidi maayo inaad samaysid bal sharcigaadu iyo diinta islaamku waxay ka shaqaynayaa in wax kastoo faa'iido ku ah aad samaysid wixii faa'iido ku ahanaysan kaa reebay intaasaan rabay inaan idinla wadaago walaalayaal oo idin xasuusiyo bal sabankaa dib u raaca iyo dadkiisii sabankaana fiiriya waxyaalahan ka warramena arka xaqiiqa hortiina taale inay tahay ogaanaysaan وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته